saxeexaasi wuxuu ahaa saxeexa looga faa'iidaystay baahida macallimiinta nin macallina oo kira ku jira oo ubad korinaya oo shaqala-aanta waddanka joogta taalla aad og tahay oo daynu wada ognahay oo ah dugsi aan ka tirsanayo cadaalad darre iyo xadgudub xagga shaqada in laygula kaco dabeedna ninkaa odayga ah waxa uu nugu markaa yidhi sharcigaa lasoo akhriyay maa iminkaa la saxeexayaa iminka saxeexa haddii aan la yidhaahdo aydan xuquuq yeelanayn sow adigoo miyir qaba oo arkaya sow maad saxeexin sow kamaad mid noqon macallimiintii saxeexaya intaasi macallimiintii dee fajac bay ku noqotay daawadayaal halkaad naga daawanaysaa waa telefishinka horyaal aniguna cabdiraxmaan juun baan ahay waxaa xarunta telefishinka horyaal lagu soo booqday macallin cismaan jaamac oo ka mid a macallimiinta reer somalilan ku soo dhowo macallin telefishinka horyaal maxay tahay fariinta aad sidaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore cabdiraxmaan jumbo iyo horyaalba waan idin salaamayaa waxaan kala salaamayaa dadweynaha reer somalilan gaar ahaan bahda macallimiinta iyo ardaydii aan muddada dheer waxu dhigi jirnayba runtii ma ihin yow nin saxaafadda iyo miidiyaha ku badan ama ka soo baxa had iyo jeer arrintan u socdaa waxa weeye maalin dhexdii ahayd kelib yaroo qoladan horyaal laftigoogu ay su-aal iga weydiiyeen oo aan runtii aan faahfaahsanayn oo iska duuduubnayd baan doonayaa caawa inaan ka hadlo oo arrinka aan faahfaahiyo arrinkaasina wuxuu ka hadlayaa ama uu ku saabsan yahay dugsi aan ka shaqeynayay muddo 11 sanadooda oo la yidhaahdo Salaama Secondary School arrintan u socdaa waa arrintaas weeye oo ah dugsi aan ka tirsanayo cadaalad darre iyo xadgudub xagga shaqada in laygula kacay macallin maxay tahay cadaalad darrada iyo dulmiga aad ka tirsantay iskuulka Salaama ee kugula kacay bismillaah waxaan ka tirsanayaa iskuulka runtii muddo dheer baan iskuulka aan ka shaqaynayay waxa fiican oo aan jeclaan lahaa inaan faahfaahiyo cadaalad darrada aan ka tirsanayo oo aan halkan kusoo bandhigo waxaana jecelahay inaan ka hadlo 4 qodob 4taa qodob waxay kale yihiin qodobka koowaad xilligan iskuulkan shaqada ka bilaabay muddada aan shaqaynayey waxa keenay in waxaan anu aan tabanayo ama aan tirsanayo ay dhacdo fariinta aan gudbinayo 4taa qodob baan doonayaa runtii inaan faahfaahiyo si loo fahmo waxaan ka hadlayo marka runtii iskuulkan Salaama Secondary School waxaan ka mid ahaa dadkii iskuulka xilligii la furay 2010kii dadkii ka howlgalay baan ka mid ahaa iskuulkaas waxaan ku bilownay 4 kalaas maantana wuxuu marayaa 45 kalaas ayuu marayaa muddo 11 sanadooda ayaan runtii iskuulka ka shaqaynayey haddaan ku soo dhowaado duluucda sheekada iskuulka markii aanu ka shaqaynaynay muddo 5 sannadood ah ayaanu si caadi u shaqaynaynay ayaa waxa dhacday 3 ka mida shaqaalihii ka shaqaynayay iskuulka oo macallimiin iyo shaqaale kale isugu jira ayaa qaarna shaqada laga joojiyey xilligaa waa 2016kii qaarna iyaga iskood shaqadii uga tegay oo meelo kale tegeen shaqaalahaasi waxay dalbadeen xuquuqdii muddada ay shaqaynayeen ayay dalbadeen dabadeedna wasaaradda arrimaha bulshada ayay dacwad markaa ay u qorteen dacwadda markaa ay u qorteen shaqaalahaas markaa xuquuqdii ay ku lahaayeen iskuulka ayay runtii shaqaalahaasi ay ka heleen oo xaqoodii waa looga qaaday intaas markay dhacday arrintu halkaa ay marayso waa 2016 meelahaasay ahayd ayaa waxaa dhacday qoladii iskuulku runtii waxaa u cuntami weyday in shaqaale iskuulka ka midi ay xuquuqda helaan waxaa markaa halkaa ka bilaabantay in heshiis lasoo qoro oo ay qoladii iskuulka lahayd ay heshiis ay keenaan heshiiskaas dabadeedna ay macallimiintii ay intashiriyeen oo ay nala shireen wadamcay heshiiska in la saxeexo heshiiskaasi waa heshiiska lagu hor istaagayo ama lagaga hortegayo macallimiinta iskuulkan ka howlgelisa xilligaas inay xuquuq helaan
waxaa heshiiskaas marka ahaa heshiis odhanaya waxaa tiin yoomiye ama commission. Commission waxaa la idhaahdaa markuu qofku tusaale ahaan oo kale alaabo soo iibinayo waxa yaruu dul saare loo dul saare ee uu ku shaqaynayo ayadii commission la idhaahdaa. annagu waxaanu ahayn shaqaale qaata dee mushaar bilaa qaata oo bishii wax ku qaata. runtii arrintaas markay timid ee la yidhi heshiiskaasaa la saxeexayaa, macallimiintii way saxeexeen. sababtana waan sheegayaa u saxeexeen. heshiiskaas oo ah sharciga marka aan waafaqsanayn oo xeerka shaqaalaha hadday rayidku waxa weeyaan sanad qofku markuu joogo xuquuq buu dee waajibinayaa oo ka dhalanaysa. xuquuqdaasi waa xuquuqdii xuquuq sanadeed iyo xuquuqdii iidaha iyo xuquuqdii fasaxyada. xuquuqahaasaa ka dhalanaya. runtii markaa arrintii markii shirkii dee laysugu yimid ee shirkii dee la fadhiistay in heshiiskan saxeexa inaad yoomiye tihiin ood maalinle wax ku qaadataan. runtii arrintaasi macallimiintii dee fajac bay ku noqotay. laba mid baa markaa gudboonaaday. qofkii inuu shaqadii iskaga tago hadduu saxeexi waayo iyo inuu saxeexo. hadduu saxeexi waayo waa inu iska tagaa marka. hadduu saxeexana markaa wuu ku jirayaayo. marka anu waxaan ka mid ahaa dadkii maalintaa weydiiyey ee ku yidhi ninkii maamulaha ahaa waa niyo baalka aan iska soo akhrino, waa sharci wixii aan iska soo akhrino. dabeedna ninkaa odaygaa waxa uu nugu markaa yidhi sharcigaa lasoo akhriya maa iminkaa la saxeexayaa, iminka saxeexa haddii aan la yidhaahdo oo maanta inalama dhaafayo. arrinta markaa iyaga ay daba socdeenna waxay ahayd shaqaalaha hore ee xuquuqda meesha ku helay. runtii markaa dee waxa u arkeen iyagu inay arrintaasi ay dad fara badanoo muddo dheer joogay iyaguna inay xuquuq raadsan karaan oo markaa iyaguna wax ay raadsan karaan ayay u arkayeen. horta heshiiska sidaasaan ku saxeexnay. runtiina waa heshiis ka hor imanaya xuquuqda dee shaqaalaha rayidka markaa waajibinayo. waa heshiis ka hor imanaya oo qofku waxaan xeerku jidaynayn dee lagama saxeex. haddii laga saxeexana hadhow cidday khusaysaa dee kolley waxa weeyaan waa de sharciyan baa dee loo eegayaayoo waxaan filaya da inuunu fulayn bay dayla tahay. macallin cismaan, heshiiska aad sheegtay in si yoomiya aad wax ku qaadanaysid ee lagu soo hordhigay ee aynan xuquuq yeelinayn, sow adigoo miyir qaba oo arkaya sow maad saxeexin, sow kamaad mid noqon macallimiintii saxeexay. marka maanta maxay noqonaysaa xaqa iyo xuquuqa aad ku doodaysaa? maxaad maalintaa u diidi weyday? haddiise maanta aad seexday miyaanad adigu hawsha isku dhigin inaad tan ay kugu timaado? waa runtaa oo waxa weeye annagaa saxeexnay, laakiin sababtan u saxeynay aan kuu sheegaya. duruufaha waddankeenna maanta haysta markaad eegtid nin macallina oo kiro ku jira oo ubad korinaya oo shaqala-aanta waddanka joogta taalla aad og tahay oo daynu wada ognahay. saxeexaasi wuxuu ahaa saxeexa looga faa'iidaystay baahida macallimiinta. macnaa waxa weeye dee qofku meel kale u tegi karaa ma jirto. isagoo dee duruufahaas ay ku hareereysan yihiin awgood ayaan u saxeexnay. waxaasan hoos joognaa sharciga. sharcigaanaanu leenahay wuu idinka hiilinayaayo arrintaa dulmiga ah ee aan saxda ahayn waxa weyaan laydinka saxeexay dee sharcigaanu markaa xagga sharciga markaa ayaanu ka eeganaa inuu nooga hiiliyo. annaguse waanu saxeexnay. duruuftaan u saxeexnay arrintaas ahayd oon cidna aanu hadli karayn, qofna aanu odhanayn marka waxa weeyaan waxaan xaq nooguma lihdin cidina may odhanin. qof walba isagoo fooraro ayuu saxeexay. markii aad arrintaa u bandhigtay inaad xaqaaga u baahantay ood doonaysid 11 sano xaqii aad kulahayd iskuulka Salaama, maxaad kala kulantay maamulka iskuulkaasi? intaanan gelin markaa gelin su-aasha ka jawaabideeda waxay ka yar horreysiin lahaa. runtii markaanu heshiiskaas aanu saxeexnay aanu hawsha aanu taasaa ku galay. heshiiska sidaas uu ku socday oo dee waxa weyan aniguna aan ku shaqaynaynay. haddaba arrinta waxaan doonaya inaan ka hadlo waxa keenay aniga waxa weyan inaan aan isku dhacno ama waxa weyan arrintan aan ka wada hadallo shaqada. horta iskuulku wuxuu ka koobnaa marka hore laba qaybood. qaybubu marka hore ahaa, laakiin markii dambe 2018 markay ahayd iskuul qayb kalea la sameeyey oo waxa weeyaan oo qaybta hablaha ayaa markaa la sameeyey. iskuulka markaa qaybta hablihii markii la sameeyey geli dambena iyaduna waa yeelatay. saacadaha markaa shaqadu waxay ahaayeen tusaale 6:15 subaxnimo ayaan shaqada geli jiray, waxaana ka bixi jiray 6:15 maqribnimo.
dambe ayaan markaa ka bixi jirnay 8 saacadood ee sharcigu ogolaana runtii way arrintaas way ka badan tahay haddaba muddo markay ka soo wareegtay 2000 iyo markay ay ahayd 21 markay ahayd ayaa waxaa jirtay urur macallimiina inaan markaa la aasaasay ururkan aan xubin aan ka noqday oo shirweynihiisii markaa la qabtay anigoo markaa dee shaqaalada iskuulka ah dabadeedna maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday anoo shaqadii ku guda jira oo xiisadihii dhigaya maalin geli dambe ay tahay geli horeba waa shaqayn jiray waliba 5 sanadood u dambeeyey baan geli dambe shaqayn jiray inta horena geli hore unbay markaa ahayd waa qaybta cusub markaa iskuulka dambe lagu soo kordhiyey ayaa waxaa dhacday maamulihii guud ee iskuulka iyo maamulihii iskuulka markaa aan joogay oo qaybta hablaha markaa ahaa ayaa markii xiisadii u dambeysay bay ii yeedheen oo xiisadii markaa ku jira waxay igu yidhahdeen markaa nimanka odayaashaahi eedaan ku haynaa markaa runtii 11 sannadood oo nimankaa aan wada shaqaynayna odayaasha saaxiibadaya hal maalin oo keliya maanaa wada hadal wax dhibaato ah oona dhex martay midna mu jirin asxaab baanu ahayn dadka iskuulka dhisay tacabka geliyay baan ka mid ahaa waqti fara badan baan geliyey xataa macallimiinta marka loo baahdo maadaama aan muddo dheer macallimada kusoo jiray iskuulka xataana u keeni jiray oo laga diri jiray macallimiinta soo yani waxa weeyaan macallimiinta iskuulka u baahan yahay qualified-ka ee khibradda leh ana xataa ka qayb qaadan jiray runtii markaa tacab fara badan ayaan iskuulka markaan geliyey way yeedheen waxay yidhahdeen eedo badan baan ku haynaa soo daaya baan ku idhi eedaha waxay yidhahdeen eedahan ku haynaa waxa weeye horta ardayda waa kaa cabanaysa ardayda jamhuuriyadda somalilan ee ladadkii aanu asaaray way garanayaan way garanayaan iyaguna waxa weeyaan way fahmayaan inta aan iskuulka aan joogay dee faanina maaye laakiin wax iga soo cawday maan maqal mana arag oo qof 11 sannadood kuu shaqaynayay inaad tidhaahdo maanta mar sanadkii 12aad aad tidhaahdo waa lagaa cabanayaa dee waxa weeyaan waa arrin markaa ay wax ka khaldan yihiin oo aan sax ahayn runtii markaa eedaha ay soo jeediyeen bay ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa eedaha ay soo jeediyeen oo ka mid ahaa haabsankaaga fara badan ama kalaaskaad ka soo baxbaxdaayo mararka qaar telefoon baad ku hadashaa waxyaaba noocaas oo kale oo aan markaa aan ahayn aan dee sax ahayn ayaa ka mid ah waxyaaba igu soo eedeeyeen dabadeedna nimankaa macallimiinta ee markaa maamulayaasha meesha ka ahi waraaq bay dabeedna ii dhiibeen waxay idhaahdeen maadaama eedahaas faraha badan markaa aan ku tirsanayno shaqadii waanu kaa joojinay waa sax baan ku idhi shaqada de iskuulka idinkaa leh oo iskuulka maadaama shaqaalaan ahay laakiin wixii aan sharcigu de uu ka qabo ee shaqaalanimo ayaynu ku kala baxanaa sharciga kelmadda anigu markaan idhi taasay ahayd waxay ii dhiibeen markaa nimanka odayaasha ahi warqad oo warqaddii markaa shaqa joojinta oo ay ku qoran tahay digniintii 1aad digniintii 2aad iyo digniintii 3aad waana markii ugu horreysay nimanka odayaasha aan wada hadale maalintii ugu horreysay ee 11 sannadood iskuulkaan joogay ay ii yeedhaan bay ahayd runtii markaa arrintaas waxay noqotay arrin markaa dee iga fajacisay ayay ahayd ururkan markaa ay iyagu markaa ay leeyihiin urur baad ka mid tahay markii arrintii ay dhacday dee waxay shaqadii ay joogsatay xeer ama nidaam baan macallimiinta iskuulka maadaama muddo dheeran joogaanu lahayn cidda maamulka ay isku dhacaan waxaan kow ka ahaa riggii dhexdhexaadin jiray ee macallimiinta ka odayeyn jiray ee khilaafkooga xallin jiray ee iyaga laftigu ay igu kalsoonaayeen oo waaba lay diri jiray cidda markaa waxa weeyaan khilaaf dhacaanna waan dhex geli jiray oo macallimiinta runtii arrin dee fiican bay ahayd oo islaax bayna naas in laga shaqeeya waa arrin qurux badan in badanna waanu galay markaa arriminta macallimiinta deedna arrintaas marka dhacday layidhi ismaa shaqadii baa laga joojiyey macallimiintii meeshaan wada joognay iskuul wada joognay runtii arrinkaa way ka hawl galeen qoladii maamulka bay u tegeen waxay yidhahdeen maxaa dhacay maxaa isku haysaan arrinkiina aanu gallo aakhirka markii dambe waxay ku noqnoqdeen ay u tagaanba waxay ku yidhaahdeen wax kale kuma haysanee ururkaa ka tanaasul oo guddoomiyaha ka yahay keliya intaas sababta ugu weyne markaa shaqadaan markaa aan uga tegay horta taasay ahayd halkaa markay marayso shaqada markaa shaqada layga eriye taas laygaga joojiyey taasay ahayd
markii dee arrinkaa saas ku dhacay waxaa dhacday markaa inaan maamulaha guud oo Siciid Faarax markaa la yidhaahdaa 2 cisho markii ka soo wareegtay ayaan xafiiskiisa ugu tegey waxaan ku idhi Siciidow muddo dheer baynu soo wada shaqaynaynay si fiican baynu soo wada shaqaynaynoo sharaf leh oo dee wax ceeb iyo wax dhibaataana anna waxa weeyaan ceeba idinka tirsan maayo idinkuna wax ceeba iyo wax qadafa intaa aynu wada shaqaynaynay maynaan la kala kulmin marka waxaan ku yidhi niyow maadaama si sharaf la rag waaweyn usoo wada shaqaysanaynu ahayn oo dee shaqadiina ay waxa weeye ay noqotay markaa inaan aan ka tago waxaan doonayaa xuquuqdii aan lahaa muddadaan idinla soo shaqaynayey Siciid wuxuu igu jawaabay markaa uu yidhi horta niyow wax mushaara miyaad nagu leedahay waxaan ku idhi mayane mushaari makuu melihiyo dee bil walba mushaarkayga waan qaadanayay haddaba waayee xuquuqda aad leedahay xuquuqbaad aad leedahay waa xaaraan oo lama ogola marka anigu ujeeddada waxay ahayd hadhow si aan loo odhanin dee nimanka miyaas aragtay nimaad wada hadashay inaan usoo maro marka waxaan markaa de intaa wixii ka dambeeyey dacwadda markaa noo bilaabantay oo waxa weeyaan dee kiiskii baa saa markaa lagu galay dee broseska sharciga buu kiiskaasi ku jiraa marka arrinka horta waxa weeyaan keenay inaan shaqada ka taga arrinkaasu ahaa oo waxa weeyaan markaan nimankaan isugu dhacnay saasay ahayd arrinkiina imanka dee maxkamadaha sharciga buu ku jiraa oo halkaasu maraya fariinta ugu dambaysa ee macalin Cismaan aad diraysaa maxay tahay bismillah fariintan diraya waxa weeye laba qodob baan diraya qodob waxa weeye hay-adaha sharciga ee inoo dhisan ee maxkamadu ay ka mid yihiin ama dad cid kasta oo waxa weeyaan arrimaha waxa weeyaan qaybka waxaan ka rabaa cadaalad baan ka rabaa in arrinkaygaa si cadaalada loo galo si cadaalada hoos loogu eego fariinta galeen gudbinaya waxa weeye wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqada fariintan u faraya waxa weeyaan shaqaalaha marka laga saxeexayo heshiis aan xeerka waafaqsanayn arrintaa in la hubiyo oo si aan dadka xuquuqdoodii marka aan meel loogaga dhicin in la hubiyo aan soo jeedin lahaa iyadana asalaamu calaykum waraxmatullah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed